markiiska rawda oo xaafadan bariga loo sameeyay xalfadii ardaydii u horeysay ee daraasada loo soo waday iyo dacwadii nashaadaadkii soo socday inta badan inaynu galabta isugu nimaadno furitaankii ugu horeeyay waqtigu aad u kooban hadal badan ku dheeraan maayo waxaynu ku bilaabanaynaa oo ugu horeeya Allah subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa waxaynu akhriyaa ardayga Abdikariin Abdulcasiis Maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان شيخ جامع ياسين ورسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت شرفت له كسوق يبقى شيء والدين تا علماء يا أرضيدا حافظا أو كسوق يبقى برنامج كان لو قبنا أيه dhalinyartii aan xaafada oo wax lagu barayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka iyo barnaamijkan ka qayb galidiisa barnaamijyadan hadafkoodu waxa weeyaan horta culimadu markay shireen oo ay ka tala bixiyeen da'yarteena iyo ubadkeena waxyaalaha ku ah weerarka xagga akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo in markaa waxay taladii noqotay xaafadaha magaalada sidan oo kale loo sameeyo barnaamijyo dacwadeed iyo waxbarasho oo dhalinyarada lagu ababiyo masaajidka inay joogaan inay wax ku bartaan inay wax ku akhristaan oo saa loogu ababiyo saa ay ugu koraan soo ma garan halkan kaliya ma aha masaajidda magaalada xaafadaheedoo dhan way inooga jiraano barnaamij noocan oo dacwadu ay gacanta ku hayso هدفك waa in ubadkeena iyo dhalinyaradeenna la abaabulo kutub loo akhriyo diinta loo dhigo lagala dagaalamo waxyaalaha akhlaaq ahaan dhaawacaya xafladaha noocan waxay kaga duwan yihiin xafladaha kale in badan baa waalidiintu ka qayb galeen xaflad ay dhiganayso malcaamad quraan ama mahad ama iskuul oo ardayday wax barayeen ah iyagoo waalidiinta fiil laga qaado halakan waxay kaga duwan tahay waa barnaamijka culimada dacwadu ay u gudbinayaan magaalada oo aan loogu talagelin sida barnaamijtii waxbarashada lacagta laga qaadi jiray oo kale aan ahayn soo ma garan marka waa amalka dacwiga ah oo maxdiga ah halka waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waalidiinta inay ku dadaalaan caawinta dadka hawshan wada oo macallimiinteena quraanka ee xaafadaha ducaada masaajidka joogta iyo masaajidda kale oo ku hareeraysan oo waqti dheeraad ku bixinaysa carruurteena wax u baraan oo khamiis iyo jimcuhu ah maalmaha nasanayeen waa ognahay barnaamijtan waxa la fuliyaa khamiis iyo jimcaha waa ayaamaha macallimiintu nasan lahaayeen bay carruurteen wax loo akhriyo oo la abaabulo oo maxaa la yiraahdaayay loo faa'iideeyo waqti in lagu bixiyo daarinta macallimiintu isgarabtaag bay u baahan yihiin isgarabtaag bay u baahan yihiin caawin bay u baahan yihiin kala shaqayn bay u baahan yihiin waxaynu u baahannahay carruurta inaynu ka soo celino suuqyada iyo meelaha aan fiicnayn oo ku soo xidhno masaajidka oo masaajidka aynu keeno si duruus loo siiyo waliba barnaamijtani isma diidayaan carruurta inay jimcihii khamiista nastaan mararka qaar
waxaa loo samaynayaa kutubaa loo akhriyaya mararka qaar barnaamijyo ay iskaga madadaashaan baa loo samaynayaayoo ay ku madadaashaan oo aan duruus adagba ahayn si aanay qudhoodu khamiista jimcaheeda wayar ciyaaraan ciyaalku aanay u dareemin cidhiidh barnaamij tarfiihi ah loo sameeyaa marka waalidiinta dee fariintan u gudbinaya waxa weeyaan culimadu iyo ducaadda masaajidda iyo xaafadaha joogta waxay dadaalkan u bixinayaan waa ubadkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ugu dhowaanayaan iyo bulshadeenna say u dhisi lahaayeen jiilasheedii qaadamka ahaa oo soo socday marka waalidiinta aabbayaal iyo hooyooyinba waa in arrintaa laisgarab taago oo la caawiyo oo lala qabto oo la isugu tago si aynu u soo saarno ubadkeenna oo fiican ubadkeenna oo akhlaaq leh ubadkeenna oo innagana ina anfaca naftoodana anfaca ummaddoodana anfaca berrito oo aynu ugala dagaalano barnaamijta faraha badan ee ku wajahan dhallinyaradeenna intaasaan odhanaya aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waxaa jiray gabdho iyo wiilal oo qaybta markiisku nashaadaadka u waday waxaa markaa galabta la qabanayaa waa tii wiilasha insha allahu tacaala xalfaddii tii waxa weeyaan gabdhuhuna way dambaysaa waxaa inoogu xigaa oo kelmadda wacdiga ah isaguna inoo soo jeedinaya hadda u yeedhayaa sheekh maxamed xirsi falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى وحليه هي إنه بالمناسبة وسوق هذا حوي نشاطات كدعوية تعلينتا loo diyaarinayo maraakiista xaafadaha waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay miyay isku mid yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayn inma yatadakkaru ulul albaab waxa wax ku waansama oo wax ku qaata dadka ahlul uquusha ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala macrifada u leh ee rasuulkiisa Muhammad garanay salawaatu Allahi wa salaamu alayhi baa diintan wax ku qaata waxa la inaga rabaa marka injiilka yaryar lagu barbaariyo tacliinta si ay uga badbaadaan mustaqbalka in qiyamkooda diimeed uu lumo waa arinta waxa weeye ay daaran tahay oo munaasabada u tahay culimaduna insha Allah taala ay faahfaahin doonto waxaan kaga baxaynaa marka in waxa weeye qof waliba uu wax barto oo ku dadaalo aqoonta maxaa yeelay qofna kuma dhalanin qof waliba maalin buu idraak cilmiya uu la yimi oo waxa weeye macrifadeedii iyo barashadeedii ku dadaalay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay yaani waxa weeye isagoo tilmaamaya in qof waliba calooshoodii ka soo dhacay isagoo aan waxba garanaynin wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum ilaahay wuxuu idin ka soo saaray calooshii hooyooyinkiin la ta'lamuna shay'an idinkoo aan waxba garanayn waja'ala lakum sam'a wal absara wal afida markaasuu idin yeelay yaani adawaadkii ay dadku ku weelayn lahaayeen oo ah maqalkii iyo araggii iyo qalbigii waxa weeye wax weelayn lahaa culimada inagala soo qayb gashay sheekh Abdi Waahid sheekh Jaac Yaasiin ustaad Xirsi maamulaha macadka Al-Furqaan iyo dhammaan culimada kale odayaasha waalidiinta intoo dhan waa u mahadcelinta kadib waxaan maanta u qabanaynaa xafladii soo xiritaanka dowladii koobaad qayb ka mid ah ardaydii kutubta loo marin jiray oo dhamaysay kutubtii qaybo ka mid ah arday ayaa loo dhigaa oo ay macallimiintu siiyaan oo lagu booriyaa akhlaaqda iyo dhaqanka suuban ee islaamka wiilal iyo gabdhaba isugu jira tiradooduna waxay noqonaysaa 118 intii u horeysay ayaa maanta oo wada wiilal ah ayaa maanta waxa la guddoonsiinayaa abaalmarino iyo jawaa'is kala duwan maadaama ay soo khatimeen kutubtii dowladda qaybteedii koobaad intaa kadib waxaan waalidiinta iyo dhammaan bulshada xaafadda ku nool aanu ka codsanaynaa in ay arintaas wanaagga ah ee khayrka ah si fiican noogala shaqeeyaan gaar ahaan aabbayaasha sidoo kale waxaan mar labaad u mahadcelinayaa hooyooyinka oo iyagu tiir
xooggan ka ah arrinta dacawiga ah xaafadda ka socota iyo abaabulka dhalinyarta iyo dhammaan dacwadda xaafadda ka socota boqolkiiba la odhan karo 80 waxay ku leeyihiin awood xoog badan iyaga waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idin siiyo sidaa iyo si ka fiican inaad u shaqaysaan baan idinka rajaynaynaa hooyooyinku aabbayaashu laba mid weeye qolo iska mashquulsanoo bariiskii ku mashquulsanoo suuqa weyn isaga dhaadhacdo aan inta badanba jaanis ba u helinin carruurtii iyo in waajibkii lagu lahaa in badan oo ka mid ahoo aan ogeynba labadaa boos ee bannaanaadayba waxaa inoo buuxiyey hooyooyinka ilahay khayr ha siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaalmarin fiican oo ka khayr badan juhdiga ay bixina ilaahay subxaana watacaala ugu bedelo inay arrintaa aad iyo aad uga shaqeeyaan oo lafdhabartaa sida ay u yihiin usii ahaadaanna waa ku boorinaynaa aabbayaasha laftigooda waxa aan ka codsanaynaa inay shaqeeyaan oo dacwada odayaashu khayr allah siiyo wax fara badan bay ka shaqeeyaan nabadgelyaday ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan xamaalka iyo biilka reerkay soo saaraan laakiinse inay akhlaaqda iyo jiil islaam ahoo fiican ay xaafadda iyo qoyska ka soo baxaan iyana waxaanu kula talin lahaa inay ka shaqeeyaan waanuna ka codsanaynaa maxaa kugu faa'iidada badnaanteenu dhiganana kitaabka inay akhlaaqdu tahay shay qaaliya maxaa u daliila in almu'mina liyudriku bixusni khalqihi darajata saa'im walqaa'im qofka mu'minka inuu ku gaarayo akhlaaqdiga oo wanaagsan darajada qofka sooman iyo qofka salaada habeenka inuu taagan وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عرت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكر لك إن ذهبت والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنس لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يصيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن بكفا شددت mikrofoonka maamulaha macadka furqaan sheekh xirsi aadan falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إلهي وما هذا سكاله سبحانه وتعالى waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay xafladan wanaagsan culimada mas-uuliyiinta muasasada mas-uuliyiinta markaskan markas arawda odayaasha waalidiinta hooyooyinka iyo aabbayaashaba leh ardaydan yaryar ee waxbaranaysay iyo dhammaan inta xafladda ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad halkan dee waxaa lagu soo bandhigay galabta barnaamij aada u fiican waxqabad aada u culus oo dhallinyaradii ducaaddii iyo culimmadii xaafaddani ay abaabuleen oo ay sameeyeen iyo dee midho muddo kooban ku soo baxay baa inoo muuqanaya waxay mudan tahay bogaadin iyo ka mahadcelin waxay mudan tahay isgarab taag in laysu garabsado oo sidii waxa weeye culimmadii ay yidhaahdeen in dhammaanteen arrintan aynu gacmaha isu qabsanno waalidiinta macallimiinta dhammaan dadkeenna xaafadda degan oo arrintani waxa weye dee si dhabay wada taabanaysaayo ilmaheennii iyo ubadkeennii baa ku hagaagaya mustaqbalkoodii baa la hagaajinayaa oo la xardhayaa oo la naashnaashayaa inay noqdaan ubad toosan oo hagaagsan oo waddada mustaqiimka haysta idanka ilaahay baa laga shaqaynayaa inay noqdaan waxtar mooyeen kuwa aan waxyeelo laga filanin inay dadkooda iyo bulshadooda iyo ummaddooda ay ku soo celiyaan baa laga filayaa idanka ilaahay arrintaa marka dee dadaalka ugu badan sidii sheekh jaac uu yidhi iyo culimmadii ka horreysayba qaybta ugu weyn waxaa la rabaa inay ka qaataan waalidka iyaga weeye cidda ilmahoodii ay dhaleen la tarbiyadaynayo oo waxa loo dhigayo si weliba waxa weeye nafhurnimo ah loogu shaqaynayo oo wakhtigii yaraa ee jaaniskii macallimiintu ay hayeen ay gelinayaan oo sidii milcaamadaha iyo madaarista wax loo weydiinaya aan loo weydiinaynin haddaba dadaalka ugu badan ilmaha inuu geliyo cidda
الحمد لله رب العالمين ثم صلاة الله وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلهي سبحانه وتعالى مهدس كلا لمانتد runtii aad baan uga mahad celinayaa walaalaha dadaalka qiimiga badan ee ay bixiyeen ilaahina subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo culimadii fikirkiisa lahayd waxaynu ka dareemi karaynaa culimadu siday uga fekerayaan da'yarteenna iyo bulshadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigooda iyo camalkoodaba ha barakeeye daaleen oo halkaa ha ka sii wadeen waa uun bilow uun mooyaane waxba xidhitaan uun harmoodinina hawshu way socotaa marka insha allah walaalaha rawdana waxaan leeyahay hawsha sii laba jibaara ardaydan waxaan leenahay sii laba jibaara hawsha waalidka iyo hooyooyinka iyo odayaashana waxaan leenahay waad aragtaan kolley dadaalka iyo juhdigaas idinka waxaan inaga baahan yahay dowrkii aad ku lahaydeen inaad kasii laba jibaartaan oo aad sii dadaashaan ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه marka labaad waxaan u mahad celinayaa culimada muasasada gudoomiyaha shuurada Sheekh Cabdiwaahid Xaashi gudoomiyaha golaha fulinta ee muasasada Sheekh Jaamac Yaasiin culimada ka socda maraakista dacawiga ah ee masaajidada magaalada dhammaan culimada xaafadda markaska Rawda arday macallimiin haween kulligiin waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kulankan khayriga ka soo qayb gasheen miisaanka xasanaadka idin saaro marka labaad kulli anigu xaafadan ka mid ahaayo aad iyo aad runtii shaqadan socota waan ugu faraxsanahay inay sii socotana insha allah waan rajaynayaa ardaydaas quruxda badan ee halkaas aad ku aragtaan ee laga soo ururiyey madaarista xaafadda halkan ku dhamaystay duruusta qaybtii kale ee dumarka iyaguna socota oo iyana rajaynayno insha Allah dhaqso iyana inay xafladooda u dhici doonto waa arin waxa weeyaan farxadeeda leh maraakistii horay xafladaha u dhigay waa ku mahadsan yihiin kuwa kalena insha Allah iyana waa soo socdaa rajaynayna inay insha Allah saas oo kale ay u qabtaan ciddii maskaxdan keentay oo fikradan keentay aad iyo aad bay iyaguna ugu mahadsan yihiin ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro kolley waqtiga aynu ku jirno waynu garanaynaayo ardaydu meelo badan bay ka dhaxeeyaan waxay dhigtaan madaaris waxay dhigtaan iskuulo waxay dhigtaan macaahid ardada waa naga wada dhaxaysaayo arday fara badan oo malcaamadaha dhigta macaahidana waa dhigtaan anigu anoo xagga macaahidda si gaar ah ugu hadlaya sidoo kale iskuuladana waa dhigtaan saadaraadad waxa la doonayaa dhinac kasta ardaydii inay ka dhisnaadaan oo ardaydu ay naga dhaxayso oo qolo kastaaba qaybteeda ay si gaar ah u ilaaliso sidoo kale madaarista waxaan aad ugu boorinayaa inay qabtaan ardaydaas si quraanka loo dhiirigeliyo xafladihii waayii hore la qaban jiray ee ardaydu markay quraanka dhamayso khatmul quraan lagu maamuusi jiray xaafadda ilaa 9 madrasa ku yaala baan filayaa laba madraso baan inta badan ka arkay xafladaha quraanka dhigo markaska Xasan al-Basri iyo Ibn Kathir kuwa kalena insha Allah waxaan rajaynaynaa ardaydu markay quraanka dhamayso in lagu dhiirigeliyo ardayda quraanka oo wax weeyaan xafladaha iyagana loo dhigo si shacairtii quraanka kor loogu soo qaado ilaahay waa mahad leh dhammaan akhyaarta xafladda ka soo qayb gasheen waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran teatar fiican baa la siiyay oo taariikh nololeedka halkan si aan jirtay marka Sheekh Axmed waxa weeye waxaan filayaa mar baanu waxbarashada wada bilownay baadiyaas mar baanu ka nimi halkan baanu ku bilownay marka labada iyadu mise Rawda laba qodob baan soo qaadanayaayo inta bilow ahayn aniga Axmed na soo martay horta aad baan ugu faraxsanahay masaajidkii bariga aanu magaalada nimi halkan aanu nimi horta macadka al-Furqaan xaafadaha waxa ka dhigan jiray halkan ka aadi jiray Sheekh Jaamac Yaasiin bis qof kale oo inta xaqan ka tago Furqaan aada
xaafadaha ma joogin waxaa kaloo intaa dheeraa oo waqtigaa halkan dheeraa markaanu nimo dhallinyaro wax dhallinyaro ah oo khamiis sita ma aysan jirin marka horta howlahaas berigaa wax saas ah maantana dee waad aragtaan khayrkaa iyo nuurkaa muuqda alxamdulilah waan la ilaahay noo siyaadiyey insha allah intaa kadib waxaan xasuustaa halkan masaajidka markaanu cashar ku qaybi jiray masjid rawda aniga sheekh axmed maalin maalmaha ka mid a baanu anagoo qur-aanka diyaarinayna baanu aayad qur-aan isku qabannay qaala dhab hamsaha wasliga ah baanu isku qaban waxaa midna wuxuu yidhi waxaa loo akhriyay qaala idhab midna waa alifka waa la qarinayaa buu yidhi waan xasuustaa annagoo ay halkaas isku haynaba kadinkaa waxaa ka soo galay waa waqti dambe muddo aanu joognay ustaad shucayb iyo ustaad yaasiin baa soo galay haddaba axmed horta kaya keena saxnaa kolley garan maayo laakiin waana la kaa saaray waxyaalaha kale ee iyada la yaab ka mid ah wax ka mid ahaa maadaama dhallinyarada xaafadda qur-aanka wax kuu mariyo iyo ay waxba aysan jirin dee macallin weyn ama nin mashquul ahoo iskool wax ka dhigayo beri hore qur-aanka bartay mooyaane wax kuu mariya maadaama aysan jirin higaaduna xoogaa way nagu yara adkeyd markii bilowga aanu ahayn marka aad iyo aadna hanka iyagu u sarreeyey marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a xoogaa axmed xagga maadiga buu iga yaro horreeyey maadigu galay anigu qur-aanka un baa dhigan jiray maalin maalmaha ka mid a baa waxaana la yidhi secondary baa wuxuu qaadanayaa arday koorasa ah oo waxa weeye hal sana ah buu qaadanayaa oday baa isoo wacoogiy waxaan rabaa barnaamijkaan ka faa'idaysatid barnaamijkaan mustawis maba gaadhin weli axmed aan hawshuu soo bandhigay wuxuu wallahi qorshaha ka hadhi mayno waa gelaynaa qorshaha waa gelaynaa waana qorshe aanan dee la qabsan karin oo bilow baanu laakiin hanka iyagu waxaan is leenahay ardayda aydh ka baxday ee dhammaysay waad la wada qabsan kartaa qorshihii markaanu tagnay oo aanu meeshii tagnay oo macallinkii soo galay dee macallin malaha dee aad u jabsan maayo macallinkii wuxuu buuxiyey sawiraddii uu buuxiyey hal mar oo ingiliish bay ku baxaysaa kabacdi laynkii koowaad annagoo maraynaa buu tirtiray kii labaad markaanu qorray baa macallinkii annagoo casharkaas hal layn ka haysana buu baxay warka ka dambe soo geli doonaa dhaamaynu kaa dambaynu suganaa baa sugno mid ka daran baa soo galay annagoo laynka waa maalin saddexaadii baan horta soo tagnay baa jidda halka intaan fadhiisanay horta si go-aan buqaato wuxuu yidhi anu mar hadday sidaa tahay anu meesha ugu soo diyaargaroobay waqtiyada dambe anna waxaan sidaa mar hadday tahayba bal horta xagga shareecada iyo waxaa ka saaraya waxaa ka tegaya marka horta waqtiyada noocaas sidan ayaa jirtay markaan xasuusto xaaladii xaafaddu ahayd iyo waqtiyada iyo maanta markaan xasuusto runtii waxaa la oran karaa isbeddel aad u weyn baa jira marka waxaa la rabaa insha allahu taala hawshaa in la sii wado aad loo dadaalo dhalinyaradu aad ay u dadaalaan hankana kor loo qaado culimadii iga horreysana aad bay umahadsan jasaakum allah khayran markii hore waxay ahaayeen 70 arday hadda waxaa dhammaystay labada kitaab waxaa la yidhahdaa 33 arday 33 arday maanta si sharaf leh ayaa loo maamuusayaa oo alaabta quruxda badan iyo qiimaha leh insha Allah tacaala iyaga yeelanaya raggii dadaalay waxaan leenahay dadaalka iyo doonta la soo fuulo ninkii dadaala asaasa loo maamuusaya macallimiinta iyo maamuusayaan waxa iyana gees socda gabdhaheena aynu jecelnahay oo iyana ah 85 gabdhood oo iyana insha Allah tacaala kutubtooda u socoto marka la isku daro waa 118 arday waxaan leeyahay guulaysta ayaan dhammaantiin idin leeyahay halkaa ka haya من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء بين إصرار ووجد وعمل وتآخ في تفان وأمل سلم الأحلام فيها اكتمال من رقي لرقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء من
علو لعلو الارتقاء بين أصحاب القلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء قد كسرنا في تعاوننا الصعاب وحدة الأيدي علت نحو سحاب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب القلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا